الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال دغيستيال كسو دغادا برنامج خاص او كسابسن حفلة لغو تاغيريي مدحوينها جمهورية جيبوتي الحاج اسماعيل عمر جيله oo runtii u suurtageliyay baarlamaanka reer Djibouti in uu mar saddexaad u cararo madaxtinimada ee Djibouti iyo waliba shacabka reer Djiboutina ay ku wada raaceen xaflad runtii lagu taageerayay ayaa jaaliyada reer Djibouti ee Mareykanka gaar ahaan gobolkan Minnesota ay u qabteen xafladaasi ayaa waxa ka soo qayb galay dadyow aad u fara badan oo ayagu ka kala yimid dalalka Mareykanka goboladiisa hadaba xafladaasi oo sida quruxda badan ee loo soo agaasimay waxa ka soo qayb galay ulma-udiinka dhalinyarada haweenka Soomaaliyeed iyo waliba reer Djibouti oo aan loo kala harin xaflad aad u qurux badan ayay halkaasi ka dhacday ma aanay ka marneen fanaaniinta reer Djibouti waliba kuwa qurbaha degan ee fanaaniinta dalkiina hooyo ee Soomaaliya qaar ka yimid ayagoo waliba aad ugu faraxsan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti alxaaji Ismaaciil Umar Geele ee inuu mar saddexaad u ogolaaday shacabka reer Djibouti iyo baarlamaankiisaba xafladan quruxda badan waxa runtii si fiican u soo agaasimay dhalinyarada reer Djibouti iyo haweenka reer Djibouti-ba waxa kamid ah ugu horeyntii Cabdiraxmaan Ciise Kaahin iyo Nagaad Jibriil Abdulaziz Mukhtaar Antar Balese iyo Roble Xasan Qoslaaye waxaan filayaa in aad si fiican uga heli doontaan xafladan quruxda badan waa anigoo ah Liibaan Hussein oo idinkala soo xiriirinaya magaalada Minneapolis ee arliga Mareykanka warahmatullahi wabarakatuh dhamaantiin mudanayaasha marwooyinka dhalinyarada cuqaasha waxgaradka dhammaan dadka qiimaha badan ee caawa halkan isugu yimid dhamaantiin waxaan idin leenahay habeen wanaagsan inta kadib caawa ujeedada barnaamijkan loo qabtay haddaan idin dul maro waxay tahay dabaaldeg ay jaaliyadda reer Djibouti ee wadankan Mareykanka qaasatan jaaliyadan reer Minnesota ay jecel yihiin inay ugu dabaaldegaan isla markaasina ay ku taageeraan madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geele oo golaha baarlamaanka dawladdiisu ay u ogolaadeen inuu mar kale u ordi karo jagada madaxweynenimo ee wadankaas haddaba jaaliyadda gobolkan oo arrintaas aad u danaynaysa isla markaasina aad u xiisaynaysa ayaa caawa xafladii umurtaa ku beegeen halkan ku qabtay waxayna leeyihiin mudane madaxweyne mar kale issharax waa tahay ugu horreyn barnaamijkeenaas oo aad u xiiso badan aqoon-yahaniin waxgarad iyo weliba dhalinyaro iyo haween intuba ay ka hadli doonaan ayaa ugu horreynta barnaamijkeena waxaan ku furanaynaa ayadaha qur-aanka kariimka qowlka eebe waxaana inoo akrinaya mahad diriye mahad soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم قرآن كريم كاوينو أخرينيي فضيلة الشيخ سوما أورانكر ودو قرآن أخري مرة إنك استودع ليريها وحالقيها بعدتكو inay isleeyihiin qofka dhalinyarada oo malaha sheekh ma gaarin waa inuu gar weyn leeyahay cimaamad malaha sida laakiin sheekheena maanta isaga ayuu aad u mahadsan yahay maadiriye waxaan jeclaan lahaa tan inaan mikrofoonka ku soo dhaweeyo mudane Abdulaziz Mukhtaar oo ah isu duwaha barnaamijkan isla markaasina bal inoo sharaxi doona ujeedada iyo waliba sababta ka dambeysay caawa inaad halkan isugu timaadaan Abdulaziz soo dhaw